بسم الله الرحمن الرحيم. آه، halkaa naga daawanaysaan waa talooyinka shacabka Soomaaliyeed. mar walbana waxaan jecelnahay in aan ka shaqeyno qeybaha wacyigelinta ee dalkaynu. waa ognahay waxyaabo badan ayaa Soomaaliya ka dhaceen. dhacdadan hadda dhacday shalay naguma cusbaynin, hore ayay u dhaceen waddanka meelo badan. waxaanse dhihi lahay dowladda inay ka baaraan degtaa qashka la siinayo. dadkan waxay isku mari layihiin dad oo waxa ka dhaxeeyaan waayo deegaan iyo beero iyo waxyaabo noocaasa. xataa al-shabaab dhexdiisa ay isu adeegsadeen ay ma arkin oo isku dardareen ay ku kala xaqbadsadeen. waxaan ognahay dowladda Soomaaliya in aynan iska waalin. waa ognahay nabadiidka ma wataan hub nalama mari kara ah iyagoo meel ka soo horjeedo meeshan lama soo geli karaa. waa ognahay tabar badan kuma jirto. ma arkinoo dowladdana wax badan ayay qabatay. marka ka dambaysana cafis ayay fidisaa. marka ka dambaysana tilaabo ayay kusii qaataa cadowga si ay aga hortagdaa ay ma arkinoo u ciribtirtaa. laakiin ha ka foojignaato dadka beero deegaan ma arkinoo in ay kala boobaan isku dayayaan. dowladda si siyaasadaysan basaraysan ciidankayna uu leeyahay aragti dheer. dadkan waxaan fahamsanahay dhalinyarta Soomaaliyeed miyi iyo magaalo ayaan fahamsanahay dadka sida ay isu dardarayaan iyo qaabka ay u kala badsanayaan meelaha deegaanka ah. marka dowladda waxaan ugu baaqi lahay mar walbaba dowladda taageerada aan u hayna mar walbaba ummadda Soomaaliyeed ama dhalinyarada Soomaaliyeed haddaan sheeganayno kala laabamayno. intaasoo balaayiin oo maanta war la iska dhehayni ayaa naga soo dhammaadeen. waxaan jeclahay aad ayaan aga xumahay in ay dad Soomaaliyeed oonan xabad geysanoo beeraleeya la dhammeeyo qaab qaldan. qashkaasna dowladda Soomaaliya la siiyey. dowladda Soomaaliyana aynan ka baaraan degin. la yiraaho al-shabaab madaxdeedii inta ku jirto dad beeraley la dhameeyo. mar walbaba dowladda taageerada aan u hayno haddaan nahay talooyinka shacabka Soomaaliyeed amba ummadda Soomaaliyeedba mar walbaba miciga dowladda waaye. dadka naga dhintana inna lillahi wa inna ilayhi raajicuuna. waxaan dhihi lahay ummadda Soomaaliyeed aad ay aga xumaatay, annagana waa ka xunnahay. laakiin dowladda qashka la siinayo in ay si fiican ay aga baaraan degtay ay ka fiirsata ayaan dhihi lahay. waxaan dhihi lahay waana u tacsiyeyaha ummadda Soomaaliyeed meel walbay joogaan. dadka amba xildhibaanaha amba odayaasha deegaanka sheeganayaan qaarkood in ay laaluushan yihiin waa ognahay. nagu bilaaba mayso dhacdooyin aan goobjoog ahaa al-shabaab laysugu adeegsaday degmada Balcad iyo meelo badan oo Soomaaliya ka mid laysku xiran ogahay. ayaga oo la ogyahay nin 50 sano beero uu falahayay lagu xirayo beertan unu kaalahaynay qeybihiisiyaad barra ayaa naga xooga la leeyahay. marka dowladda Soomaaliya meelaha ay operation-ka ay ku qaadayso waa inay ka baaraan degtaa. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.